ciidanka dib u xureynta deegaanka oo garabsanaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda isugu jira booliska nabad sugidda militariga ayaa waxa ay haatan ay kaabiga ay ku hayaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale deegaanka Mabaax oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya. boqolaal ka mid ah ciidanka dib u xureynta deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo qorsheeyay in weerar dhowr jiha ah ay ku qaadaan deegaanada iyo degmooyinka kala ah Aadan Yabaal iyo Mabaax ayaa waxaa xogtaasi durba helay ururka Al-Shabaab kuwaas oo isaga baxay deegaanada Mabaax iyo sidoo kale Aadan Yabaal ee ka kala tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan ayaa lagu arkayay deegaanada iyo degmooyinka Aadan Yabaal iyo Mabaax iyaga oo shabaab caruurtooda iyo sidoo kale agabyadooda kala gedisan ku daabulaya kuwaas oo u boqolay dhanka iyo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ila deegaanka ah oo ku sugan degmooyinka iyo deegaanada Aadan Yabaal iyo Mabaax ayaa warbaahinta madax bannaan waxay u xaqiijiyeen in guud ahaan furumihii dagaalka iyo difaacyadii Al-Shabaab ay ka qoteen gudaha iyo bannaanada deegaanada iyo degmooyinka Aadan Yabaal iyo Mabaax ay isaga baxeen maadaama aysan u babacdhigi karin xuduudda cir iyo dhul isugu jirta oo ay ciidanka dib u xureynta deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo isgarabsanaya ah ay ku wajahan halkaasi. qaar ka mid ah ciidanka dib u xureynta deegaanka ee beesha Xawaadle oo ka mid ahaa ciidankii loo qorsheeyay qabashada Aadan Yabaal wax ka yar 3 kiiloomitirna Aadan Yabaal xilligan u jira ayaa warbaahinta kula hadlay furimaha dagaalka ee Aadan Yabaal waxa ayna sheegeen in haatan ay ku sugan yihiin dhulka beeraha ah ee Aadan Yabaal ka sokeeya isla markaana ay u diyaarsan yihiin in Aadan Yabaal gacanta ay ku dhigaan. ilaah ku mahadsan anigoo magacaygu yahay Muumin Cilmi Jimcaale ay ciidamada xoogga dalka annagoo ah saakay ilaah ku mahadsan Aadan Yabaal inaan ku joogno beerihiisa dhex joogno ateenadiisu ay loo jirto 20 talaabo ilaah ku mahadsan ilaah loo suuro geliyay waxaan u geli laaynaana ma ahin cabsi daraadeed xeelad oo jirta awadeedan u joognaa halkaynaan joogi doonaa insha Allah haddii ilaahay yiraaho wax yar kadib ciidamada sugayno iyo xaalado jira kaliya meesha ku sugaynaa Aadan Yabaal aan joognaa beerihiisi waa kuwan ateenadii waa tanaa wabillahi tawfiiq. محمود جمعالة عصبي أدر سنة كذا من وش يقدر سنة كا سنة واحد سنة كذا سجاشكي سنة أيده كوكو قضي إن قرقان أدبات ستو يا كوكو قصبي يا سكوكو قصبي كوكو قصبي أنا الشباب اللي جوجي دوجيدي يتكي أو لا حد قال هذا أنا اللي جوجتها ما أنت وصار رصتي عيل كيات جوجتها حد ما أنت عد سكك ويديني يسملان maxaa kale aad marka sakooyinkii hore qolada qawaarida Al-Shabaab ay ka qaaday maxaad kale aad maxooga lagaaga qaatay ma soo ongolaasha lagaaga qaatay hadda maxaad kale aad marka xoog layga qaatay xoog iga qaateen iyagu iska qabaana ilaa ku kala baxshay marka maanta xoogii iskaga bixid xaqii hore gutay xoogoodii maanta waa iskaga saartay marka waxa jeelidii ma dhowr kale ka xasho hadda maxaad leedahay marka maxaad leedahay meesha jiraa ka soo qabanna maad leedahay haddii ciidanka dib u xureynta iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku dhigaan Aadan Yabaal iyo sidoo kale Mabaax ciidanka ayaa la rajaynayaa inay u jihaystaan deegaano ay ka mid yihiin Wabxo, Ceelbuur iyo kuwa kale oo Al-Shabaabku haatan ay ku sugan yihiin. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka Kalsan, furimaha dagaalka Aadan Yabaal, Shabeellaha Dhexe.